kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada kanaalka Qalbi Soomaali TV. maanta waxaynu tagaynaa magaalada Hargeysa halkaas oo uu ka dhacay arooska fanaanka caanka ee loo yaqaan Qamar Suugaani iyo waliba xaaskiisa Nasiin Sooraan oo uga timid dalka dibadiisa gaar ahaan dhinaca qurbaha. haddaba waxaynu ka hadli doonaa isla markaana soo bandhigi doonaa soo diyaarintii arooska iyo qaabka u dhacay iyo walibana mustaqbalkooda qaabka uu eekaan doono labadan lamaane. sidaa daraadeed intayna mawduuceena furan bal fadlan haddaad nagu cusubtahay calaamadda subscribe ka taabo kadibna calaamadda gambaleel ka taabo ku soo dhawow barnaamijka maanta. ugu horeyn daawadayaal intaynan mawduuceena maanta furfuran isla markaana aynan ka hadal arooska Qamar Suugaani bal waxaynu dib u raacaynaa taariikhda iyo waxyaabaha ay qortay. Qamar Suugaani waa fanaan aad loo jecel yahay, run ahaantii waa fanaan mustaqbal wanaagsan la dhinaca fanka iyo suugaanta. haddaba Qamar Suugaani waxaa jirtay gabadh ay hore isu qabeen oo calafkoodu kala dhammaaday. gabadhaas waxa la oran jiray Ubad Aragsan, waa fanaanada caanka ee la yaqaano. haddaba gabadha waqtiyada uu la noolaa heesa badan bay wadaageen isla markaana waxay qaadeen nolol hore soo mareen. laakiin arinto ama xaalku waxa uu ku dambeeyay in uu soo qaado hees la yiraahdo Deji xaalka, hees la yiraahdo inuu soo qaado isla markaana adigu waa uu kala dhamaaday calafkoodii. laakiin imika waxa uu guursaday gabadhan loo yaqaano Nasiin Sooraan, waxa weeye xaaskiisa ugu timi qurbaha. sidaas oo tahayna bal waxaynu eegaynaa arimaha isdhex yaala ee social media iyo baraha bulshada lagu falanqeynayo. haddaba isagoo xaaskiisa cusub ammaanaya oo maaragtay heesa u qaadaya, dhammaantiin waa dhageysateen. heesahaasna waxaa ka mid ahaa isagoo mustaqbalkiisa cusub iyo waliba maaragtay soo bandhigaya jacaylkiisa uu ku faraxsan yahay fanaankani. isagoo soo bandhigaya waxaa ka mid ah heesaha uu qaaday xinjiro laga dhuray wadnaha xubbigan i waraabin jirin, xinjiro laga dhuray wadnaha xubbigan i waraabin jirtay qof baan helay i xafida. waxa uu la jeeda dabcan gabadhii hore ee ay kala tageen, isagoo leh qofka ay xafidayana waxa weeyaan xaaskayga cusub ee Nasiin Sooraan. intaa kadib bal waxaynu kala eegaynaa erayada heesta ku jiray la dhaaf xilligii adkaa buu yidhi, naxdinta farax baa ku xigay, waa kaa qalbigii xasilay. run ahaantii waqtiga uu heesta qaadayay iyo waqtiga maanta uu ku nool yahay, run ahaantii qofka bini'aadanka waxa la oran karaa marka uu lamana cusub sameeyo isla markaana guri cusub iyo walibana maaragtay mustaqbal cusub u dhiso isla markaana waaroosto ayuu qalbigu xasilay. maanta buu xeerka maraya uu maalinta ka sii hadlayay fanaankani. haddaba horta guurku waxa weeye waa nimco Ilaahay bixiyo, waxaana weeye qofka bini'aadanka inuu guursado. dadkuna hadday isfahmi waayaan way kala tagaan. taas Ilaahay baa baneeyay, haddana waa shay Ilaahay necab yahay. waxa la yiraahdaa Ilaahay waxa uu necab yahay inuu qoystumo, laakiin waxa uu baneeyay inay dadku kala tagi karaan haddii ay isfahmaan. taas waxa weeye badbaado aad u wanaagsan. dhinaca kalena waxa uu la hadlayaa fanaankani oo heesta kula hadlayay, macnaha inagoo arooskiisa soo qaadanayna laakiin waxba ka horeeyay soo maaha. sidaa daraadeed wixii ka horeeyay oo dhan baynu falanqay doonaa. fanaankani wuxuu heestiisa kala ku oranayaa xanteena kuwii jecla u sheeg xaaskaygii xafladii meherkeenayo inuu dhow yahay xuskii xidigii nasrigeeda waday. xidiga nasrigooda waday run ahaantii iyo xuskan uu sheegayo cid kale may ahayn, waxa weeyaan habeenkan arooskooda ayuu ahaa. sidoo kalena xanteena kuwii jeclaa intii la jirtay Ubad Aragsan la jirtay gabadhiisa xaaskiisa hore ayuu leeyahay xanteena kuwii jeclaa u sheeg xaaskaygii xafladii meherkeenayo. run ahaantii waa aduu erayo xoogan oo la isku tuurayo. sidoo kale wuxuu leeyahay qalbiga xeradiisa wacan caashiqa ku xanaanin jiray xul baan helay dhowrta nolol. si kastaba haatee imika waxaan ku suganahay xaalad aad u degan
oo barwaaqa oo maasha Allah ayaa buu leeyahay. Okay, haddaba waxaa jirtay fanaankani inuu magaalada Hargeysa yacni ku sugayay xaaskiisa isla markaasna uu lahaa yacni ii kaalay isla markaasna uu magaalada Hargeysa yacni uu ku sugnaa dadkuna yacni baraha bulshada ay kaga jawaab celinayeen waxyaabaha uu sameynaya fanaankani iyo noloshiisa sida ay tahay. waayo markaad eegto barihiisa bulshada gaar ahaan Instagram iyo weliba aad eegto Facebook oo kale waxyaabaha dadku u soo qorayeen inta badan waxaa ka mid ah oo welibana maartay markay arkaan labadii lamaano oo sidaa iskugu dhegan labadii lamaano oo isjecel waa Nasiin Sooraan iyo welibana fanaankan loo yaqaano Qamar Suugaani. dadku markay arkaan isla markaana ay xasuustaan gabadhii hore siduu ku ahaa yacni ku ahaa qof aad iyo aad u jecel tanna aad iyo aad u jecel dadku waxyaabaha ay soo qorayeen waxaa ka mid ah isla markaana ay inta badan ku dhaleecanayeen fanaankan waxaa ka mid ah yacni gabadha iyagoo u sheegaya waxay leeyihiin si kastaba kugu dhegdhego beri toolo ayuunbuu naa kala keenayaa. yacni waa waxyaalaha la yaab kale horta lamaanayaasha waxa weyn loo hambaliyeeyaa fiican laakiin haddana si kastoy tahay in dadku waxa ay sheegayaan la sheegana way fiican tahay. sidaasoy tahay fanaankani intiisa badan uma jawaabo dadka laakiin waxyaabaha uu ku qanciyo waxaa ka mid ah inuu soo qaado heeso maaragtay miisaan leh heesahaas oo uu ku sheegayo yacni tiimkii hore maaragtay yacni nolosha ay wadaageen oo ku leeyahay haddaan ku doono ku doortaye hamoodin inaan darnaaday haddaad dadka kuu jeclaaday hamoodin inaan daciifay haddaan kaa daba gocleeyey hamoodin inaan duloobay haddaan dooqa kugu yeelan hamoodin inaan dul sheegay haddaan shalay ku dadaalay hamoodin inaan riyooday haddaan maanta ku daayay hamoodin inaan ku dayrshay. yacni waa erayo la odhan karo run ahaantii wuxuu kula hadlayaa xaaskiisii hore isla markaana waxa uu sheegayaa fanaankani oo uu leeyahay si kastaba ha ahaatee anigu yacni haddii aan dhab kuu jeclaaday hamoodin yacni inaan kuu darnaaday haddaan kuu jeclaaday hamoodin inaan daciifay haddaan xataa maartay kuu daba gocleeyey yacni haddaan kuu raaxleeyey hamoodin inaan duloobay yacni oon dee yacni adigun kuu koobanahay run ahaantiina aan adigun yacni dumar arkayo haddaan yacni waa erayo run ahaantii daadis ah ama foorjo ah haddana ah yacni ixtiraam yacni waxa ixtiraamka waxaa ka mid ah haddaan maanta ku daayay buu leeyay hamoodin inaan ku dayrshay. yacni hamoodin ixtiraamka waxa weye qofka bini aadamka markaad maartaa kala tagtaan yacni kumaan dayrin dhibaato kumaan geysan anuun baa nolol kala samaysta weeyaan. haddaan xiriirkii dayacay buu yidhi hamoodin inaan dhaqaaqay haddaan damacaaga diiday hamoodin inaan yacni dangaare haddaan aamusnaan dan mooday hamoodin inaan ku diiday dhexdeena haddaan ileeyey hamoodin inaan dal doortay. yacni run ahaantii waa inoo kala dhammaatay laakiin wanaag iyo farxad baynu ku kala tegaynaa weeyaan. sidoo kalena waxaa jirta mar kale oo uu fanaankani lahaa naftu soo kumay tabin gurigiina maan tegin mana dhex taagni keligay. yacni run ahaantii waa erayo uu xaaskiisii hore ku soo celinayay laakiin waayahaas uu soo dhammaaday guud ahaan. hadda waxa ay maraysaa yacni in maaragtay fanaanada yacni fanaankani uu soo qaado heeso aad iyo aad u qiiro leh heeso aad iyo aad u macaan heesahaasoo ka mid ahayd heestii Malabo oo u qaaday xaaskiisa cusub. run ahaantii heestan waxaa la odhan karaa waa hees yacni midhaheedu aad u wanaagsan yahay run ahaantiina qaabka u soo qaaday iyo muusiguna aad buu fiicnaa laakiin haddaynu heestaa lafteeda dul marno wuxuu lahaa Malaboy kartidaada niyadda ku maqsuuda tan dambe uu ammaanaya la soco waa gabadhan dambe ee imika nolosha wadaageen ayuu ammaanayaa sidaa wuxuu leeyahay Malaboy kartidaada niyadda ku mabsuuda nabdigaad mulkidaale yacni kama maarmo agtaada yacni nabdiga yacni niyaddii baad leedahay qalbigii ayaad leedahay agtaadana kama maarmaayo dabcigaaga marweysan ayuu leeyahay inta mawle ku beego alle mansab siiye aan makhluuq la wadaagin mid haween ka mas-uulsan hani waa igu masiibo yacni waa igu munaasibo inaan kuu muhanayo dadku waa ka markhaati maskaxdayda adaa degimaanka iyo beerka murtidayda ayaa ah
aan mataana ahaano ka midooba qulubta maanta ayay taagan tahay heestani run ahaantii heesta uu sii qaaday laakiin maanta ayay taagan tahay waa qulubta iyo maankaba way ka midoobeen sidaas ay tahay haddaba arooska waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa run ahaantii si qurux badan ayaa u dhacay markii hore fanaankani gabadha waa uu sugayay waa ay soo degtay marka ay soo degtayna isla markiina lamaba suginay arooska si yaro degdega ayaa loo qabtay waana wax lagu farxo weeyaan in reer dhismaan gaar ahaan fanaaniinta in maaragtay ila amaano kuwa reeraha dhisa ama maaragtay kuwa maaragtay mustaqbal wanaagsan sameeya waa arin aad iyo aad loogu baahayay waana arin lagu farxi doono fanaankana waxaan u rajaynaynaa run ahaantii inuu ahaado fanaan maaragtay yacni reerkiisa dhaqda sidoo kalena inuu ahaado fanaan ilaahay barakeeyo waayo waxa weeyaan fanka sidiisaba waxa weeyaan waa taqaanaano waxa weeye reeraha fanka inta badan ma aha reera istaabala oo niyad iyo qalbiga ka degan laakiin waxaanu rajaynaynaa in fanaankan iyo xaaskiisa cusub iyo welibana bulshadu dhammaanteed ay nolol wanaagsan hesho